wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa maanta la wareegay 16 konteenar oo mucaawano raashin ah taas oo ka soo gaartay wadanka isu tagga Imaaraadka Carabta. Deeqdan oo maanta wasiirka gargaarka gudoomay ayaa loogu talagalay dadka ay saameeyeen abaaruhu ee ku soo barakacay daafaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Gargaarkan ayuu wasiirku kula wareegay dekedda weyn ee magaalada Kismaayo, waxaana deeqdan wakiil ka ahaa wareejinteeda maarayaha dekedda Kismaayo Axmed Xaaji Aadan. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay oo wasiirka ku wareejiyay deeqdan raashinka ah maarayaha dekedda Axmed Xaaji Aadan. anigoo ah maarayaha dekedda Kismaayo Axmed Xaaji Aadan waxaan maanta halkaan aan ku wareejinaynaa alaab mucaawino ah oo ay noo soo direen dawladda Imaaraadka Carabta. alaabtaas oo loogu talagalay dadka barakacayaasha ah ee ku soo barakacay gobolka dowlad goboleedka Jubbaland, halkaas oo hadda aan ku wareejin doono wasiirka maareynta iyo masiibooyinka Jubbaland iyo wasiirada kale, wasiirka xanaanada xoolaha, wasiirka cadaaladda, wasiir dowladda waxbarashada iyo agaasimayaashii. halkaan hadda waxaan ku guddoonsiinaynaa aan ku wareejinaynaa alaabtii 16 konteenar oo isugu jira oo ah 3555 mitritan oo u dhiganta 6100 kiish oo isugu jirta sokor, bur, bariis, digir, saliid iyo caano iyo timir oo qoyskiiba inta loogu talagalay iyo masir. intaasi ayaan insha Allah taala aniga oo ah maarayaha aan ku wareejinayaa wasiirka masiibooyinka iyo maareynta dowlad goboleedka Jubbaland. ugu dambeynna waxaa goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed oo la wareegay deeqdii ayaa sheegay in muhiimaddu ay tahay in wasaaraddiisu caawinta iyo garab istaagga dadka danyarta qayb weyn ka qaadato. waxaan si rasmi ah u gudoonay mucaawano raashin ah oo nooga timid walaalaheena isu tagga Imaaraadka Carabta oo ka gudoonay maamulka dekedda Kismaayo. runtii raashinkan waxaa loogu talagalay dadka abaarahu ka barakacay Jubbaland ay soo martay marxalad adag, dadkeedii xoolihii iyo xoolo dhaqatadii ay dhamaan ay ka dhamaadeen oo maanta u baahan gurmad iyo nolol aasaasi ah inay helaan. fursadda tan koowaad waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo walaalaheena isu tagga Imaaraadka Carabta oo runtii gargaarkan na soo gaarsiiyay ugu talagalay dadka Soomaaliyeed ee reer Jubbaland oo abaarahu ba'an ay saameeyeen. waxaan ka codsanaynaa runtii maadaama ay dawladda Jubbaland hadda ku jirto duhdi iyo dadaalo dadkaas sidii loogu helaa xal waara, inay annagoo kaga mahadcelinayna inay mar walba ummadda Soomaaliyeed ay garab istaagaan inay nagala shaqeeyaan mashaariic horumarineed ee xal waara loogu helo ayagana. raashinkan aad uga mahadcelinaynaa, wax badanna waa ka filanaynaa. fursadda tan qaaliga waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo madaxweynaha dawladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaan oo runtii hormuud iyo waqti adag ku bixiyay inay mucaawanad maanta imaato. mudane madaxweyne aad baad u mahadsan tahay, dadaalkii iyo fariintii aad noo dhiibtana maanta waa gudoonay. waxaana ku xaqiijinaynaa insha Allah taala annagoo fulinayna awaamirtaada inay dadkii loogu talagalay ee masaakiinta reer Jubbaland si rasmi ah ay u gaarto, annagoo ka wada shaqaynayna wasaaradaha iyo hay'adaha kale oo dawladdu ay qusayso. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan maanta gudoono insha Allah taala dadka Soomaaliyeed ee reer Jubbaland abaaruhu ay saameeyeen fariina u diraya. way arkaan inay dawladoodu geed gaaban iyo geed dheer ay u fuushay si ay nolol ay u helaan. ayaguna waxaan leenahay insha Allah taala dadaal baan ku jiraa, intan iyo in ka badanna waan idinku maqanahay. Awil Cabdi Cabdullaahi Labaqayd, Jubbaland TV, Kismaayo.